waa mahadsantihiin waxa gudoomiyaha noo furay waa mahadsan yahay maama Aamina iyo muxuu ahay gabadhii kale oo Hinda ahayd iyo centerkuna aad ay u mahadsan yihiin inay xafladan oo kale tan ugu cazumaan dumarka kaalay wax la hadla inay yiraahdaan waa sharaf bay noo tahay shukriyadiinina maaragtay inkastoo markii hore aqoon waayay maaragtay inay joogto aad ay u fiican tahay وقف أقوم بدن لا ترين كدومر كانوا وايدين لقبتها مركا أنت رجل جسوا كرين لها إن ها يضل كانوا وفي عادي وفي عندها مركا جو النوع عسى ماركتي يعني وحيلتها هاي وحن قبا ولي جينا قبا وحواي political participation وحبا كورية political participation أنا وحبا يقال هورية وحي يقال هورية وحواي أنا وحن أركا قبل وحي siyaasadda ka qayb galaysa mujtamaca ay maaragtay wax badan ay ku soo kordhinayda marka ay wax barato marka ay shaqo hesho marka ay hesho guur ay ku kalsoon tahay saddexda marka ay timaado yaani shaqadii empowerment-iga ahayd dumarku way dhameystiran tahay siyaasadda ka qayb galaysa haddii laakiin iyadoo aan saddexda soo marin ay siyaasadda gasho siyaasadda waxa hogaaminaya niman lunsan iyaduna way la lumaysaa waa jahadaas la aadayda iyagu u wadaan gadaal dumarkii uma soo fiirinaya marka empowerment-iga waxaan u leeyahay waxa waaye gabdhuhu inay waxyaabaha ay u qareemayaan ay rabaan in la helo ay ugu horeydo inaysan muxuu ahaa gabdhuhu isku dhiman in dhaqaatiir badan la helo in la helo muxuu ahaa mataqaanaa meelihii dadka lagu daweyn lahaa isbitaaladii MCH-kii muxuu ahaa iyo meelihii kaleeto in la helo oo xagga yaani caafimaadka muxuu ahaa dumarku ay noqdaan dad badbaadsan ay noqdaan marka waxa siyaasadda loo gelayaa waa inay noqdaan in dumarka waxna la baro caafimaadkoodana laga shaqeeyo muxuu ahaa mataqaanaa gurigoodana laga shaqeeyo waayo gurigu mujtamaca dhan ayuu wuxuu u yahay aasaas u yahay marka haddii habartii iyo aabihii aysan wada hadlaynin khilaafkii dhexdooda ka yimaada ay si nabad ah aysan u xallisan karinin de ilmihiina waxay noqonayaan ilmo fawda ayay noqonayaan meel dhexe markay marayaan habartii iyo odagii ay isfuraan ilmihii kala qaadashadoodii maaragtay lagu diriro ama muxuu ahaa mataqaana marka yaani xirfadaha gabdhaha la barayo waa inay noqdaan inay xalliyaan mushkiladaha qoyska mushkiladaha maaragtay beelaha ay la nool yihiin midda qaranka inay noqoto qof wax bartaan hawshaas qaban kara marka anigu sideedaba waxaan qabaa inaynu waxa qareemida aan sameynayno ama advocacy-ga waxa la yiraahdo aan sameynayno ay noqdaan wax isku xiran oo system ah inay noqdaan aysan noqonin marba meel inaan ku boodno mar siyaasadda ku boodno mar waxbarashada ku boodno mar muxuu ahaa mataqaanaa dagaalka iyo waxaan in la joojiyo nabadeynta aan ku boodno laakiin waxa inay noqdaan wax isku xiran oo u adeegaya mujtamaca heerarkiisa kala duwan u adeegaya hadda doorashada la gelayo waxaan rabnaa inuu soo baxo xildhibaan mujtamaca uu matalayo wax taraya ayaan rabnaa inuu soo baxo waxaan rabnaa xildhibaan ama gabar ha noqdo ama wiil ha noqdo wax taraya maamul goboleedka uu isagana matalayo laba matalaad uu leeyahay moogta saddex matalaad السلام عليكم شو سدح مثلاد وليه وحو ليهي بيش او متليو مامول goboleedka iyo qaranka ayuu leeyahay saddexdaas ba inuu wax ka tari karo waa muhiim waa haduu gabar yahay iyo haduu yahay ninba uu yahaba waxaan taas u leeyahay baarlamaanka xildhibaanka aan soo dooranayna waa kan madaxweynaha dooranaya waa kan ansixinaya xukuumadda iyo barnaamijka ay wadanka ku maamusho waa ninka la rabo ama gabadha la rabo inay la xisaabtanto dawladda xukuumadda inay la xisaabtanto oo tiraahdo wasiir hebel waxa weeyaan hawshiisi waa ka soo bixi way baarlamaanka yimaado markii la dhageystana la fayr gareeyo waa qofkaas waa ugu dambeys qofkaasi wuxuu ka qayb galayaa fagaarayaasha caalamka marka inuu meesha ugu dambeeyda seexdo ma aha waa inaan keenaa qof hore imaanaya oo muxuu ahaa mataqaanaa Soomaaliya oo dhan matali kara oo waxa wadanka ka jira ee forumkaas laga rabo sheegi kara inaan la dhimaadno marka xil ka weyn xilalkii hore ayaana saaran sanadka
arrintu ma aha beel ma aha qof jiran ama qof baahan ama qof aan shaqo haysan la siiyo yani siyaasadda iyadii dhammaydba hunguri baa loo bedelay marka waa inaan hunguriga ka bedelnaa oo aan samaynaa siyaasad nidaam leh oo dadkeeda u adeegayda inaan samayno taa marka waxa weeyaan qof kasta oo anaga naga mid ah xil gaar ah ayaa ka saaran xildhibaanka laga soo dooranayo deegaankiisa inuu ka fakiro oo markay uu yar tahay ergada hadduusan soo gelin ergada wacyi geliyo oo la yiraahdo war gabadhaan ha noo dooranina midaan kale noo dooro tanaa dhaanto tanaa wax baratay tanaa dadka wax u qabanaysa wax qabad in lagu xisaabtamo iyo hufnaan qof nadiif oo aan eed maaragtay laga daba sidin maaragtay weel wasaqaysan in meesha la keenaa la rabaa marka ani waxaan dhihi lahaa xil ka weyn xilalkii hore ayaana saaran aanan ka shaqayno inaan gabdhaha wax barno daweynana aan ka shaqayno waa mahadsantihiin raalli ahaada waan dheereeyeen